السلام عليكم أصحاب دقالقة سودو هذا والسلامنا ما أنت حلقة حمرتنوك عبدولي محمد عبدولي وحوي CPA استمر كان وحوليه هاي شركة لا شقيسة بزنس يضدك individuals مركا عبدولي سودو عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراكي وادوهي آد بعدكم ما سنتهاي إن عاد ما أنت يقع سوينتو استوديو هذا وحان إن شاء الله رجينا إن لابد النذبة dadka in dhageysanaya ma dhageysan doona insha Allah naga faa'iideysan doonaan soo aad buu u dhawaad ma sanid waxa laga yaabaa in dadka daawanaya fiidooga badankooda aanay fahansaneyn waxa uu yahay CPA CPA waxa uu taagantay certified public accountant Soomaaliya dadum aan wax weeye baan jeclay xisaabiye marka bal dadka ma yara sharaxi CPA waxa uu yahay in depth ama salom anayn karo iyo waxa CPA ku qabtaan iyo sad ku soo gashay CPA horta ereygu CPA saad u sharaxdayba wuxuu u taagan yahay certified public accountant hadda anaga Soomaalinahay waxaan naqaanaa xisaabiye haddii xisaabiye la sii faahfaahiyana waa qof wax xisaabiyo qof ama qof wax tiriyo hatta qofka dukaanka ku fadhiyo ama meherada ku fadhiyo oo lacagta ku qabanayo waxa la dhihi karaa xisaabiye laakiin se wadanka aan deganahay ama wadamada dunida koowaad markii loo fiiriyo sadfa loo fiiriyo waa qof wax qaasa ku taqasusay waliba xagga loo yaqaan accounting ama xisaabaadka laakiin se wadanka aan deganahay sida Mareykanka kale qofkaaseeto oo accountant ka noqday wuxuu baranayaa waxyaabo badan oo baranaya xagga ganacsiga ah ha ahaato marketing ha ahaato financing ha ahaato investment saasoo ay tahay CPA nimadu waa labo si lagu galo koodi xagga waxbarashada horta ina iska dhisto waay labo markaad ka soo dhisto waana imtixaan ma haya imtixaano afar adoo fariisato afar markaad ku baasto wali iskuma dhigaysid CPA baan ahay waa adoo maanta salahan law school aaday JD-gi soo qaatay laakiin bar exam-kii aan qaadan lawyer ma tihid sama ama khibradii maada qaadan so markii aad afartaas imtixaan qaadato hal sano u dhigmo ama 2,000 saacadood u dhigmo ana ka hoos shaqeysaa qof CPA oo kala ah si wixii aad u barato wixii aad u fahanto khibradda ku kororto because waxa lagu isdeenayaa ummadda lagu isdeenayaa ummadana ma la rabo in loo soo sidaayo qof aanan waxba hagi karin so markii aad taa hesho ba haddana waxaad codsanaysaa hadda wadankanaga konton gobol buu leeyahay kontonkaas gobol kasta wuxuu leeyahay board of accountancy buu leeyahay oo dadkaas ayaga hago dhakhtarka sidoo kale injineerka sidoo kale odolka sidoo kale codsi baad qoranaysaa marka codsigaas qorato background check-da la fiirinayaa qof dambiilaana lama rabo moogtahay inuu wadda wax u qabto markii taad aad ku baasto waxaad qaadanaysaa classical wadana ethics iyo morals oo ethics ma garanaysaa iyo moralski afwan luqadanada ku ilooxo taas aha laakiin dadku ay fahmayaan marka ka qaato aad ku baasto ba shahaado dalbato markaas aad suugi kartaa CPA so haddii aan isku soo duubo waa 4 sano oo bachelorkii ahaa 1 sano dheeraad oo waxbarasho ah 4 imtixaan oo la gelayo aniga kula hadlayo runtii dadka badankood waxay ka hadlaan saskooda ka hadlaan aniga waxaan jeclahay inaan ka hadlo feerkayga inaan ka hadlaan jeclaa waayo muxuu ahaa qofku bini'aadamku waa inuu marar ku faa ama waa inuu marar dhacaa 4 imtixaan aniga midkiiba hambaran ku dhacay mid kamida hal buundo wax ka dhiman hal buundo baan ku dhacay waan xasuustaa maalin Memorial Day ahayd but dareenka waxa la lahay hal dhibic kaliya baan uga dhacay but alxamdulillah actually dirigelis mid kastoo ku dhaco waa ku laabto ku baasay markii dambe so qofkii rabo waan runtii shaqo la dhihi karo aad bay u fiican tahay waayo iraallo ku dhiranaya tusaale ahaan shirkadaha waaweyn ee Mareykan joogo aad aragto sida Amazon oo kale Microsoft oo kale Bowen oo kale CFO-gooda ama qofka u qaabilsan xagga dhaqaalahooda oo kale badankood waa qof soo bartay xisaabaad ama qof la soo shaqeeyay qof CPA ama asagaba CPA ahaba oo wax fahantaa so imagine shirkadda weyn Mareykanka ugu weyn
qofka labaad qofka saddexaad waxaa laga yaabaa inuu ahaan jiray CPA ahaan jiray qofka CPA noqonaya waxaad tiri waa inuu soo qaato aqoontii basic ahayd ee ugu yaraan 4 sano jaamacada ka waran 4taas sano ee jaamacada ma inay ahaadaan soo baratay accounting ma inay soo baratay xisaab mise waxay noqon karaan waxa doonto labaduba aniga cabdiwali ahaan shakhsiyan ana accounting doortay laakiin se waxaad subin kartaa duruuso kala qaadan kartaa matter of fact shahaado kala qaadan kartaa oo ku qaadan kartaa marketing ama financing qota laakiin se waxaa jiro credit jiro tusaale ahaan jaamacadaha ku jirtay jaamacadaha qaar baa semester qaar baa quarter ha hadda aniga quarter system ka dhigan jiray runtiina haddii aan waqtiga sheego waxaan sheegaya 14 sano baa koor baa aniga qalan jabiyay so waagaas qofka raba inuu xagga CPA ga aado waxaa laga rabi jiray 36 ama 36 hours 36 accounting class hours laga rabi jiray oo runtii u dhigmato haddaad fiiriso wax hal sano ka yar waa 12 abrobio adiga waa 45 credits like 36 baa laga rabay 36 kaasna badankood waa in ay yihiin wax adiga la dhihi karo ama intermediate ama advanced accounting sida loo yaqaano 300 series ka ama 400 series ka jaamacadana soo qaadato marka inaad fahantaa raa moogta marka ka fahanto kabacdi oo shahaadi aad qaadato board of accountancy-ga of Ohio ama board of accountancy of Washington marka kugu subinayaan they have to evaluate resume-gaada ama CV-gaada soo fiirinayaan adxam wuxuu soo qaatay kan uu qaatay wuxuu qaatay salahan wuxuu qaatay leeyahay financial accounting advance 404 big waa check baa lagu siinayaa kan buu qaatay kabacdi baa imtixaanka u sigada adoo taa aan soo marin ma buu fariisan kartid imtixaanka marka inay iyagu evaluation ku sameeyaan weeye haddii aad soo qaatay accounting ama wax accounting related xisaabta oo kale ana hadleeday it helps you ama ku caawin kartaa barbio okay صح اوكي سو wanaagsan ma sharaxay waxa uu yahay CPA iyo mas'aladu ku soo gashay wabal inaad ka hashay CPA waxay qabtaan bal tusha ma noqon CPA waxay qabtaan ama waxa adigu ba qabataa as CPA waxyaabo badan ay qabtaan tusaalahan waxaa kamid dadka badankood waxay yaqaan cashuur bay yaqaanaan iyo waxay yaqaanaan diyaarinta muxuu ahaa waxa soo galay ama waxa ka baxay ganacsi ka baxay bay yaqaanaan taasna waa waxa u badan oo la dhihi karo CPA uu qabtaa laakiin waxyaalaha kale uu qabto waxaa ka mid ah amal ahaan ganacsi baarata inaan gaato qofkii gacsataa wuxuu ku yiraahday ganacsigayga waxaan kaaga iibinayaa 2 milyan wal horta su'aasha waxa weeye 2 milyan ganacsigan miyuu qalmaa soo ana soo basaa business valuation wana suuqa soo ogata you have to do market research wana ganacsitii aad ka dalbataa financial statements iyo bangi adiga aad suubisaa analysis suubisaa kabacdan ku dhac Cabdiraxmaano ninkan ama muxuu haba gabadhan lacagta ay sheegatay oo qonta ama uma qonto taasi waa mid dadka badankood one for j waxaan dhahaa haddii aan dhinac ku leexiyo FBI da camal oo kale federal bureau dadka badankood wuxuu yaqaanaa in la dagaalamaan terrorism laakiinse 90% waxaa la dhihi karaa waxaa la dagaalamaan waa white collar crime white collar crime maraykankana badankood wuxuu ku saleysan yahay muxuu ahaa maal lacag ku saleysan yahay and FBI da badankood agentka badankood waa actually accountants ama waxa loo yaqaano forensic accountants qaar baa CPA so you can do even xataa waxay dhahaan fund examination ma subin kartaa as a CPA or as an accountant waxaad kaloo subin kartaa muxuu ahaa sample analysis you can even do xataa investments stock crypto dadkaasna xataa waa gali kartaa so waa in adiga qofka baranayo waa specialty yeelataa waxaa kaloo jira wax loo yaqaano audit salahan waxa rabtaa inaad kabrin ambarto waxa soo galiyo waxa ka baxayo sida uu soo bandhigayo wixiisa so waxyaalo badan wadooyin badan baa ku furmi karo haddii aad CPA ta adigu ma gaar inaad doorato meesha aad aadayso